asaga dartii yaana dadkeena loo nacin yaana dadkeena loo fogeyn السلام عليكم جايز ولكن ودن بحر ودن له سو دبادا فضلا هدي ادك عصبتها جنالكيغا سبسكرايب صار هدي اد هوري صارتني mahadsanid magacayga wadani baxar halka adiga daawanaysidna waa Mojis TV maate waxaan rabaa inaan ka hadlo mar labaad sababtoo ah PK ayaa wuxuu soo yiri video uu soo duubay ama la soo bandhigay ama video social media dhaxyaal oo ah uu dhahayo anigu xamar uma baahni ibu fanaanku isku soo koobay maadaama fanaaniintu daayihiin dhulalka oo dhan isagu haysa soo koobay maxaad ka leedahay inta Soomaaliga ku hadasha meel kasta joogto waa salaamaya ma Muqdisho mise inta kale Muqdisho iska maqnaatade laakiin inta kale way iga badan tahay $1 haday siiyaan average baan adaduma iska maqnaato ayuu yiri muxumo xamar uma baahan kartid waayo waxaad haysataa gobolkii aad ku dhalatay meeshaad ku barbaartay meeshaad ku weynaatay haddaba jawaab yar ayaan rabaa inaan siiyo dadka hadalka uu yiri Maxamed PK u fasiranayo xumaatada ama sida qaldan qof walba meeshuu jecel yahay iyo meeshuu uu neceb yahay inuu ka hadlo waa caadi waa wax macnihi loo baahan yahay qofka hadduu niyada ka neceb yahay iyo hadduu si toos kugu sheego ku neceb yahay waxa lagaaga baahan yahay qofkan uu ku neceb yahay Soomaaliya qofkan wuxuu kugu nacay iska daa hadduu si kale macnaheedu si dar Allah uu ku nacayni dee asiga ku nacabe adigu ama nac ama hanin laakiin asigu ku sheegay inuu ku nacab yahay ani ahaanteeda markii laga hadlo Somaliland ama Hargeysa aad ayaan u jeclahay iyo dadka ka soo jeedaan waan ku faanaa waayo waa dad aan aad u jeclahay sidii u hormareen sidii aqligoodu sidoo foorb u yahay dad aqli badan way waa dad maxaa ku tilmaamaa aqligooda wuxuu ku darsadeen karti iyo dadaal waxay gaareen halkii loogu baahnaa inay gaarto Soomaaliya oo dhan ay ka gaareen hadda ma aha ayaka wadan shisheeye waa qayb ka mid ah Soomaaliya oo horumar gaareen ani ahaanteeda waxaan idin leeyahay horumarkiinu aad ayaan ugu faraxsanahay horumar wanaagsan balse BK aan u soo laabto BK waa shakhsi weeye ما ها Somaliland oo dhan inuu u turjumayo ama Somaliland oo dhan inay Soomaaliya nacabtahay waa jiraan dad isaga oo kala fikradiisa oo kala aaminsan laga dhaadhiciyay waxyaabo qaldan fikrado qaldan lagu shubay waxyaabo aan macnihi ficneen la fahansiiyay si qaldan wax loo fahansiiyay way buuxaan balse waxa jira xataa dad ku nool Muqdisho dhexdeeda misna qaladaad badan laga aaminsan loogu shubay haddaba anigu waxaan dhihi Soomaalidan kale ee la dhahay waa idin necbahay ha ku dayanina asaga hadduu idin necb yahay waa walaalkiina waa wiil Soomaaliyeed idinku cafiya jeclaada mar walba waxa isku daydaan inaad wanaag le tustaan erey macaan aad ku dhahdaan si ay Soomaalida reer Hargeysa oo dhan ay u ogaadaan wanaagiina Maxamed PK ereyga uu yiri waa wax qalbigiisa ku jira uurkiisa ku jira ayuu ka dhabaajiyay qof kastana hubi ayuu leeyahay meel uu neec kala meel uu jeclaa karaa hubigiisa ayuu ka hadlay yaa loo fahmin xumaan ama qalad yaa loo fahmin balse reer Somaliland ama reer Hargeysa oo dhan hadalkaasi kuma meesan oran haddii hadda la soo baaro 30% 20% ayaa laga helayaa dad sidiisa oo kale ama fikradiisa oo kale aaminsan reer Hargeysa marka waxaan idin dhihi lahaa Soomaaliyay yaana hadalkaas dartii waxyaabo kale loo halaynin ninkan Muqdisho waa necbahay ayuu yiri aniga ahaanteeda gobolada Soomaaliya kamida haddii aan ka helin qaab ahaantooda iyo dhaqan ahaantooda sidii u dhaqmayaan haddii aan ka helin waa nacaya xaqiiqdii waa nacaya qofka wuu nici karaa shakhsi ahaantiisa ma aha marka naceebka asiga uu ku qabo ina dad badan adiga aad u xumays ama u jaafaysataan Maxamed PK waa nin fanaana qalad ayaa laga galay si xun ayaa loola dhaqmay
dhibaato iyo xanuun oo murugo leh ayaa loo geystay wax badan asaga u qorshaysan ayaa laga baabiiyey intaasina waxa ka keenaya kulaal ayaa hayo wuxuu u maleeyaa mise laga dhadhiciyay dhalinyaro muqdisho ka imaadeen ama reer muqdisho inay Kenya joogaan ee ayaka dhibaatadaas geysteen saas ayaa la moodaa balse meeqa qof ayaa lagu dhibaatay ma taqaanin Nairobi fanaanad la daqray ayaa jirto nimcad dareen waa la daqray waa la soo tuuray naftida halis iyo naftida gashay waxa lagu badbaadiyay alaya naf nimcad dareen dhibaato ayaa loo geeyay showgeeda habeenkaasi kala kacsan yahay ayaa la soo weeraray inay diiday hadal ahaa show ma qabsan karto ciyaaliyada sida BK lagu yiri oo kale sidaas ayaa nimcad dareen loo galay oo fanaaniin badan ayaa laga jijibiyay showgooda iyo qabsanaha laga baajiyay Yurub Kenya inay tagtay ayay soo laabatay intaas dhibaato ayaa loo geystay way sabrin maxamed BK wuu sabri way soma qofna waa sabra qofna ma sabro ani waxaan idin dhilaa ala taxaal asaga dartii yaana dadkeena loo nacin yaana dadkeena loo fogeynin shacabka ayaan la hadlayaa ani dawladda wax bayga magalin siyaasadda wax bayga magalin balse shacabkiinan sida xumaatada qaldan qof fasiray hadalka ama sida qaldan u aaminsan reer Hargeysa ma aha maxamed BK kaliis hadalkayga halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa haddii aad video ka heshay like haddii aad ka helin dislike walaakin idan baxro leh share comment intaba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.